daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga Himilo TV. Maxay yihiin gabayada hadalhaynta dhaliyay ee Nageeye Cali Khaliif? Marka hore aan wax yar ka eegno taariikhda Nageeye. Waa kuma Nageeye? Sida uu isaguba sheegay, sanadka markuu ahaa 1992 ayuu ku dhashay degmada Daroor ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Laakiin waxa uu ku barbaaray Somaliland, halkaas oo waxbarashada aasaasiga ah uu ku qaatay. Wuxuu sheegay inuu waxbarashada hoose ka bilaabay magaalada Hargeysa sanadkii 2003, wuxuuna intaa ku daray in 2011 uu iskuulka ku dhameeyay isla Hargeysa. Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee cilmiga siyaasadda ayuu sheegay inuu 2014 ka qaatay jaamacadda New Generation ee ku taalla magaalada Addis Ababa. Shahaadada labaad ee jaamacadda oo uu saxaafadda ku bartay ayuu iyadana sheegay inuu ka qaatay jaamacad kale oo ku taalla isla magaalada Addis Ababa, isaga oo daraaseeyay saxaafadda Soomaalida gaar ahaan wargeysyada. Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qaar ka mid ah gabayadiisa iyo jumlooyinka ku jira gabayada qaar ee dhaliyay hadalhaynta ugu ballaaran iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan gabayadaasi. Damaca shisheeyaha iyo Saylac. Inkasta oo maansadani si guud ugu saabsan tahay in ay jiraan Afrikaan damacsan dhulka iyo badda Soomaaliya, haddana wuxuu si gaar ah u xusay inuu jiro damac ku aadan dekedda Saylac. Waxaa xusid mudan inay toddobaadyaddan socotay dood ku aadan in Itoobiya ay doonayso deked kadib hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa in dalkiisu xoog iyo xeeladba mid ee noqotaba ay ku raadinayaan. Hadalkan ayaa la saaray fasiraad kala duwan, wuxuuna Soomaalida dhexdeeda ka abuuray didmo ku aadan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu si gaar ah farta ugu fiiqayo magaalo xeebeedka Saylac. Wuxuu yidhi, Soomaaliyay Afrika waxay rabaan waad la socotaaye. Sabankii gumaysiga markii layna kala soocay. Sugumaha galbeed iyo jigjiga saami loo bixiye. Sigataye intii kuu hadhaa loo sitiriyaaye. Mugan Saylac iyo xeebuhu sahanku joogaaye. Geedigu aduu kugu socdaa saaran leedadee. Samir been ah kuma gaadhaysaan waxaa sugaysaane. Hadba dood saleelo ah adoon lagu sabaalaynin. Sooyaalka hadafkaaga waa lagu saleeyaaye. Ha yeeshee wixii soo socda lagu sargoogaaye. Sida uu sheegay Nageeye wuxuu gabaygan tiriyey sanadkii 2019, waxaana ereyada gabaygan ka muuqda cabsi uu ka qabay in Itoobiya, walow uusan si gaar ah u magac dhabin, in doonayso inay Soomaalida ka qaadato dhul iyo bad ka baxsan inta ay awal haysatay. Sugubaha jigjigiyo galbeed saami loo bixiye. Sigataye intii kuu hadhaa loo sitiriyaaye. Mugan Saylac iyo xeebuhu sahanku joogaaye. Sida ka muuqata saddexdan sadar, Nageeye wuxuu aaminsan yahay in ciddii qaadatay jigjiga iyo galbeed uu hadda sahankoodu joogo Saylac iyo xeebaha. Nageeye iyo wuxuu ka yidhi siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Gabaygan uu Nageeye tiriyey 2015, sida isaga laga soo xigtay, wuxuu si adag uga faalloonayaa siyaasiga Soomaaliyeed, isaga oo ku tilmaamay dad indhaha beelay iyo weliba iimaanka. Waxayna ereyada gabaygani ku xiran yihiin siyaasadda 4.5 ama siyaasadda qabiilka iyo sida ay siyaasiyiintu ugu qanacsan yihiin. Siyaasigan inkaaraha qabiyo weliba afaadka. Siyaasigan axmaarada wateegaalku ku adeegto. Siyaasigan dalkii iibiyee ubadka caydheeyey. Siyaasigan indhaha beelay iyo weliba iimaanka. Siyaasigan ujeeddada xun ee ku abtirinaya. Siyaasigan agoontiyo shacabka aanada u geystay. Siyaasigan Ilaahay nacay diintii ka abraaray. Walee guul ma urisaan intaad daba ordaysaane. Ayaamaha dambeeye wakhtiga waan odorosaaye. Waxaad aniga igu eersataa waa ila ama kaage. Dib u eeg taariikhdu waa lama ilaawaane.